soo bixitaankii Tataarka. Awoodda Tataarku waxay soo baxday horaantii qarnigii 7aad ee Hijriga. Haddii aynu doonayno inaynu ogaano duruufaha ay ku soo barbaartay awooddani, waa inaynu isdul taagnaa xaaladda ay dunidu ku sugnayd zamankaas. haddii aad waqtigaas dunida sidaa u eegto, waxaad arkaysaa inay ka jireen laba awoodood oo isku dhowdhow kana tirin jireen. ta koowaad waa awooddii dowladihii Islaamka. dhuldeegaameedka muslimiintu waqtigaa wuxuu ahaa dhulka Ilaahay marka laba loo qaybiyo qayb. waxay ka bilaabmaysay xuduudda muslimiintu galbeedka Shiinaha, waxay soo dhambashay Aasiya, Afrika ilaa laga gaadho galbeedka Yurub oo ah Andalus. waa bid aad u ballaaran, laakiin xaaladda muslimiintu waqtigaas waxay ahayd mid aad u xun. caalamka ay haysteen ballaarnidiisa, tiradooda oo mahiigaan ahayd, iyo dhinaca kale ee nolosha oo aad u sarreysa, sida lacagta, ganacsiga, hubka, ciidamada iyo cilmiga. dhammaan iyagoo waxaasoo dhan haysta, haddana waxaa ka jira caalamka Islaamka tafaraaruq aad u daran, loolan dhinaca siyaasadda ah oo ka dhex aloosna dowladihii muslimka ah oo dhan. waxay xaaladda noocan ah gashay wax yar uun kadib qarnigii 6aad ee Hijriga, markaas oo ummadda Islaamku ahayd mid isku xidhan, awood leh, markastana guulaysata, calan keliya leh, lagana haybadaysto. bal aynu yaro eegno dowladihii Islaamku siday ahaayeen bilowgii qarnigii 7aad ee Hijriga. dowladdii Cabbaasiyiinta waxay ahayd dowlad weyn oo qadiimi ah. waxay dhisantay kadib markii ay burburtay dowladdii Umayyiyiinta. bilowgii qarnigii 7aad ee Hijriga, khilaafadan aad ayay u daciiftay ilaa ay gaadhay heer uu xukunkeedu dhaafin Ciraaq mooye. waxaa caasimadu ahayd Baqdaad. waxaa Ciraaq ku wareegsanaa 10 maamul goboleed oo yaryar, si toos ahna uga goostay khilaafada. inkastoo aanay aqoonsanin khilaafadu, waxaad odhan kartaa khilaafada Cabbaasiyiintu dowlad ma ahayn ee sawir dowladeed buu ahaa, sababtoo ah may lahayn haykalkii dowladnimo oo dhab ah. waxay ahayd hadh ay muslimiintu jecel yihiin inay iska hadhsadaan, si la mid ah sida maanta ay dowladda Ingiriisku tahay soo jireen taariikhi ah. khaliifku wuxuu xukumi jiray Ciraaq oo dhan marka laga reebo qaybo yaryar oo waqooyiga ah. wuxuu ahaa xukunka khulafadu mid ay u kala dambeeyeen khaliifyo kasoo jeeda reer Cabbaas. khaliifyadii u dambeeyey kumay jirin mid kaliya oo hamigiisu dhaafsiisan yahay xoolo uruursi iyo inuu ku dangiigsado kursigaa yar ee qolada ku jira. may fahmin in khaliifka mas-uuliyaadka saaran ay ka mid tahay inuu sugo amniga ummadda, inuu dhiso ciidamo xooggan oo ummadda ilaaliya, inuu kor u qaado meeqaamka nololeed ee shacbigiisa, inuu xukumo daalinka oo ka dhex qabto ummadda, una soo celiyo kii wax laga dhacay xoolihiisa, in uu u gargaaro waxna la qabto kuwii la dulmiyey. may fahmin howlahaas culculus iyo kuwo kale oo badan inay u yaalaan hogaamiye kasta. hamigoodu waxa kaliya oo uu ahaa inay ku fadhiyaan kursi inta ugu badan ee cimrigooda ah, iyo siday nimadooda uga dhexli lahaayeen xukunka, iyo inay dadka qoorta kaga taagnaadaan. sidaa daraaddeed waxay gudagaleen sidii ay xoolaha ugu faraha badan la urursan lahaayeen. waxay u guntadeen boob marle arag ah. waxay ku dadaali jireen in xaflado la qabto laguna saamaleelo dhegaysiga heesaha muusikada leh iyo waxaan dhaamin. nolosha hogaamiyaashu waxay noqotay mid aan ka duwanaynta dadka caamada ah, halkii laga rabay inay noqdaan hogaamiyayaal ummadeed. run ahaantii way luntay haybadii hogaamiyenimo, sharaftooduna dhulkay gashay. sidaas ayay ahayd dowladdii Cabbaasiyiintu bilowgii qarnigii 7aad ee Hijriga. Masar, Shaam, Xijaas iyo Yaman waxay ahaayeen gobolladani bilowgii qarnigii 7aad ee Hijriga kuwo ku jira gacanta Ayyuubiyiinta. magacan qaaliga waxay ka sitaan Salaaxudiin al-Ayyuubi, laakiin nasiib darro may ahayn kuwo u dhow ninka weyn. waxayba isku qabsadeen xukunkii. waxay qaybsadeen dowladda Ayyuubiyiinta ee la ogaa jabka ku dhigtay kiristaanka waagii Salaaxudiin uu hogaaminayay. meesha la yidhaahdo Xidiin maamulo yeerar bay ka dhigeen. Masarna Shaam bay ka gooday. Xijaas iyo Yamanina waxay ka go'een Shaam iyo Masar labadaba. Shaam oo kaliya u kala googooday maamul goboleedyo yaryar oo isla dagaalamaya. waxay Ximsi ka gooday Xalab iyo Dimashq. sidoo kale Falastiin iyo Urdun baa kala baxay. markaa waxaa khasaba inay dib ugu noqdaan gaalada dhulkii uu ka xoreeyay Salaaxudiin kala furfurkan darteed. Maqrib Andalus waxaa haystay maamulkii la odhan jiray Muwaaxidiin. waxay ahayd dowlad awood badan, isla markaana xukunta bariga Liibiya ilaa galbeedka Maqrib, waqooyiga Andalus ilaa bartamaha Koonfur Afrika. iyadoo taasi jirto bilowgii qarnigii 7aad ee Hijriga, waxaa bilaabmay in dowladdan lagu soo xaadiro dagaalana lala galo, gaar ahaan dagaalkii caanbaxay ee Al-Ciqaab sanadii 609 Hijriga, taasoo lagaga takhalusayay dowladdan ballaaran. Khawaarsim waxay ahayd dowlad ballaaran oo baallaha la kala baxday. waxay ahayd mid gacanta ku haysa dhammaan dowladihii muslimka ah ee Aasiya oo dhan. waxay xuduudeedu ka bilaabmaysay galbeedka Shiinaha, sidoo kale waxay xukuntaa galbeedka Iiraan oo dhan. dowladdan iyo tii Cabbaasiyiinta waxaa dhex yaalay afgarad la'aan. waxaa batay dhagarihii iyo shirqoolkii. waxayba ku dhowaatay dowladda Khawaarsim inay kala googoodo. waxaa dhexdeeda batay fitankii iyo inqilaabadii. waxay dagaallo ba'an la gashay casrigeedii maamulkii Salaajiqada, Cabbaasiyiinta iyo kuwo kale oo badan. Hindiya waxay gacanta ugu jirtay oo xukumayay suldaankii Gooriyiinta.
dagaallo fara badan oo soo noqnoqday ay la gashay dowladdii Khawaarsimiya ee aynu halka hore kusoo sheegnay. Faris waa dhulka imika loo yaqaan Iiraan. Dhinac waxaa ka maamuli jiray dowladdii Khawaarsimiya, dhinacna waxaa ka maamuli jiray dowladdii Cabaasiyiinta. intii ay xukumaysay koox yar oo la yidhaahdo Ismaaciiliya. waa shiico weliba koox aad u dhaqan xun. waxay ahayd koox aad u khilaafsan caqiidada. kooxdan waxay diinta ku baraxday qaybo falsafad ah. asal ahaan waxay kasoo jeedaan majuus oo ah qolada dabka caabuda. islaamnimana way muujisteen, hoostana majuusnimadoodii bay ku qarsadeen. waxay u macnaysteen aayadaha qur-aanka siday iyagu jeclaysteen. waxay ahaayeen kooxaha aaminsan qarinta. waxay aaminsan yihiin in arrin kasta oo diinta ka muuqda uu leeyahay qayb qarsoon oo aanay ogeyn cidina, qolo gaara mooye. cidna uma sheegaan ilaa aad gashid diintooda. waxay diidan yihiin nebiga calayhi salaam iyo qaybo muhiim ah oo shareecada ka mid ah. dalabkoodu waa mulki iyo saldanad. sidaa darteed waxay mudnaanta koowaad siiyaan hubka iyo dagaalka. guud ahaan markaan soo duuduubnay Ismaaciiliya waa kooxda ugu khatarsan ee aaminsan qarsoodiga. waxay ku caanbaxeen wax ka beddelka diinta iyo caqiidada, naanayse ay ku dhejinayeen diinta islaamka, qurgoynta shakhsiyaadka soo baxaya ha ahaado caalim, khaliif, shicib, nin iyo Anadol Turki. waqtigaas waxaa haysatay salaajiqadii Roma. salaajiqadu asal ahaan waxay noqonayaan Turki. waxay waqtigoodii hore lahaayeen jihaad daran. waqtiganse waxaa hogaaminaya salaajiq muslim ah oo la yidhaahdo Arab Arasalon. nasiib darro wii xukumi jiray gobolkan yar ee istaraatiijiga ah, deriskana laha kaniisadda weyn ee Byzantinia. waxay ahaayeen kuwo aad u duleysay, weliba liidashaalkii ugu dambeysay. haddaba waa muuqaalkii guud ee muslimiinta waqtigaas. waxay nooga muuqday in dhexdooda uu ku baahay fitnooyinkii mu'aamara. dagaalada muslimiinta dhexdooda oo tiro beelay ay ku badatay dhexdooda macaasida iyo dunuubta. maskaxdoodina ay degtay adduunyo ay isku dhejiyaan si ay ku waarayaan. dembiyadii waaweynaa ee kabaa'irta oo qalbiyadii dadka ku yaraaday ilaa ay badatay oo wax caadi iska noqotay odhaahdani: hebel baa hebel dilay, kan baa hebel xoolihiisii dhacay, kan kalea hebel dhiiggiisa ku maydhay. kelmadahan oo si dhiig qabo layskaga leeyay. waxaadba moodaa nafahan dhegaysanaya ama kuwan ku hadlaya inaan qof kala dilay ee muslimka agtooda wax qiimo weyn ah ku lahayn. waxaa khasab ah in qofka darajadan gaadha uu bedelmayo. markaa caalamkii islaamka wuxuu sugayay masiibo garba siman ka dhigtaa dhammaan wax matarayaashan aadka u liitay ee dunida muslimka oo dhan. halkan waxaynu kaga baxaynaa kafaalloodka caalamka islaamka. awoodda labaad ee aynu kaga faalloon doonaa waa awooddii saliibiyiinta ama kiristanka. waxay ahayd horraantii qarnigii 7 ee hijriga awoodda saliibiyiintu awood u dhiganta tii muslimiinta. waxay xarumaha ugu waaweyn ku lahayd Yurub, halkaasoo ay ku lahaayeen golodiimeedyo badan. waxay camal ka dhigteen dagaallo isdaba joogo ay kusoo qaadeen muslimiinta. waxay nasaarada Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga kusoo qaadi jireen dagaallo isdaba jooga muslimiinta Shaam iyo Masar. nasaarada Isbeen iyo Burtuqaalka oo Faransiisku dhex boodayna waxay dagaallo kusoo qaadi jireen muslimiinta Andalus. iyadoo ay jireen waxaas oo dhan oo isku habarwacasho ahi, waxaa jiray iskaashaanbuuraysi nasraani ah oo caalamka intiisa kale ka jiray. wuxuuna ahaa iskaashaanbuuraysigaas mid ku dhisan nacayb, xasad, xiqdi iyo colaadda muslimiinta ay u qabaan. dagaalada ugu badan waxay dhex mari jireen iyaga iyo muslimiinta. isbahaysyadana waxaa ugu caansan isbahaysigii imbaraadoriyadii Albisandiiniya. dagaaladii ay la geli jirtay muslimiinta waxay ahaayeen dagaallo bahalnimo ah, laakiin waqtigaas waa horraantii qarnigii 7 waxay ahayd mid ay awood darar lafaha ka gashay, kana farxalatay quwaddeedii iyo baaxaddeediiba. sidaa darteed khataro badan lagama dareemi jirin xaggeeda, maadaama oo la garanayay taalkeeda iyo quwaddeedaba. boqortooyadii Armeniya waxay ku taal bariga Faris iyo galbeedka Turkiga. waxay dagaallo badan la geli jirtay muslimiinta, weliba salaajiqada Turkiga. dowladihii nasaarada ee Shaam, Falastiin iyo Turkiga waxay nasaaradan qabsadeen dhulalka islaamka laga bilaabo qarnigii 5 oo ku beegan 491 hijriga, iyadoo ay jireen guulo badan oo uu ka soo hooyay Salaaxuddiin al-Ayyubi, kuna jebiyey gaalada Xidiin, Baytalmaqdis iyo dhulal kale oo badan. iyadoo intaas oo dhan laga guulaystay, haddana way sii jireen maamuladani. wax kale daaya xitaa marna may joojin xadgudubyada ay ku hayaan dhulalka muslimiinta ee ku wareegsan dhulka ay haystaan. waxaana ugu caansan maamuladaas Andakiya, Bayruut, Caka iyo Daraabulis. sidaa darteed ayaa buqcad kasta oo dunida ka mid ah la isugu haystay oo gaalo iyo islaam isugu horfadhiyeen. wayna soo siyaadiyeen gaaladu dhibaatadii ay ku hayeen muslimiinta. wuxuu Ilaahay doonay inay muslimiinta u ahaato ciid iyo guul dhammaadkii qarnigii 6 ee hijriga, halka gaaladana ay u ahayd jab, hoog iyo halaag. Ilaahay wuxuu idmay dhammaadkii qarnigii 6 2 guulood oo ay muslimiintu ka guulaysteen gaalada. mid waa guushii uu ka soo hooyay Salaaxuddiin meesha lagu magacaabayay Xidiin,
ee cariga Shaam sanadkii 583 hijriga. 8 sano kadib guushaas waxaa ka dambeysay guushii geesiga Islaamka ee Al-Mansuur uu kaga guuleystay gaalada meesha la yiraahdo Arak sanadii 591 hijriga. iyadoo ay jireen labada guulood ee waaweyn, haddana muslimiinta waxaa haystay bilowgii qarnigii 7 ee hijriga tamar darro dhulka la sintay. sidoo kale waxaa kala furfurantay dowladda Ayyuubiyiinta kadib markii uu geeriyooday Salaaxuddiin al-Ayyuubi. mar kale waxaa furfurmay dabarkii isku hayay Ayyuubiyiinta markii uu geeriyooday Al-Mansuur. sidoo kale dhinaca Saliibiyiinta waxaa haystay daciifnimo la mid ah tan haysata muslimiinta oo kale. may awoodin inay ku duulaan oo ay qabsadaan dal ka mid ah dalalka muslimiinta. sidaas ayuu ahaa muuqaalka guud ee dunidu bilowgii qarnigii 7 ee hijriga. iyadoo xaaladdu caynkaas tahay, waxaa soo baxday awood cusub oo miisaanka caalamka bedeshay, khariirada caalamkana dabagediday, uguna yeedhay nafteeda inay tahay quwadda saddexaad ee adduunka, amaba awood u leh inay tidhaahdo waxaan ahay quwadda koowaad ee dunida. waxayna ahayd dhacdadan horraantii qarnigii 7 ee taariikhda Islaamka. quwaddaas iyo soo ifbixideediba waxaynu kaga bogan doonaa muuqaalka kan inoo xiga. intaa kadib waxaynu gudageli doonaa dagaaladii iyo burburkii ay geystay dowladdan. wassalaamu calaykum.